بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dal iyo dibadba. Waa u jeedeen dhalinyarada Soomaaliyeed oo da'da yar maalmahan gurmadka ay sameynayaan, dadaalka ay sameynayaan waa da'doodii ugu yareed caqliga Ilaahay oo waafajiyay in walaalahooda masaakiinta ay u maciinaan maalkoodii, xoogoodii, wax walba ay ugu maciinaan. waa u jeedeen inay sameeyaan. maxaa kasbay madaxdii dalka inaysan ku daysanin? maxaa kasbay inaysan ku daysanin dadkii hantida lahaa oo xoolaha lahaa? maxaa kasbay ii sheeg dadkii caaqiliintii, dadkii wax bartay, aqoonta lahaa xagee aadan? dhalinyaro yar oo aan xoolo haysanoo TikTok iyo YouTube waxay ka aruuriyeen samafal ku sameynayo. inanka yaroo la yidhaahdo Bilaal Bulshaawi, da'diisu haddaan qiyaaso waa 27 jir, 25 jir meelahaas ilaa 30 u dhexeeya, adiga saas leeyahay. baa gartay inuu dhalinyaradii ayaga inay israacaan wax qabtaan, waayo markay ku dhacday dadkii kale ugu daysan la yihiin. Soomaali waxaan la yaabaa maanta haddii qabyaalad la sheego meel walba waa loo ordayaa, meel walba waa loo ordayaa, ma fahanteen? laakiin hadduu dhib dhaco ama ay noqoto in gargaar iyo dadkii dhibaataysan wax loo qabto la yiraahdo, waa la kala dhuumanaya. laakiin markii lagu dhaho kaalay reebel ku duuleysay wax keenan la dhaho, waa la ordaysiin. waa ni ogahay. waxaan idhihi lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo ujeedaan waxay sameynayaan, ma kacdaan intiina kaleenta wax qabataan. maxaa u jiiftaan? ummadda Soomaaliyeed biyo la'aan ay u baaba'ayaan, hanti la'aan, baalka dhinaca cunto la'aan ay u baaba'ayaan. xoolahoodii biyo la'aan, waxay cunaan ma haystaan, guryo ma haystaan. loo fiirsanaya war intii islaam ahoo wax haysato waxaaga bixi, waxaad baxsata arrin kaa horeeya. adiga waxaad hadda maanta haysid waxba kuuma tarayaan, waa flower, wax ay ku tarayaan male. maanta wixii gacantaada ku jira haddii aad bixiso ilaahay xaggiisa waad ka helaysaa walaalayaal. laakiin waxaan idin leeyahay jeebka aad gacanta gelsha, baxsha kulama dhalan adiga milhide iska bixi. ilaahay shalay wuu ku siiyey, maantana waad helaysaa. ummadda Soomaaliyeed oo meesha ku rafaadayso ama dhibaataysan, ilaahay inuu ka bixiyo dhibaatada ayagana u mara, faatixada u soo mara, quraan u akhriya, cibaadada u sameeya, ilaahay ka cabsada walaalayaal. ninkii wax haysto maanta walaalkiis wax dhaamana wax siiya. iska daaya baqiirnimada, iska daaya gacan adeegnimada, iska daaya. maanta markaad dhimato waxaad leedahay wixii aad maalkaaga ka bixis bisa kaa horeeya. waxaad ku leedahay waxaad cunto iyo wixii karfina aad ku leedahay, laakiin waxaad sadaqaysato ilaahay xaggiisa kaaga horeeyaan. walaal gacantaada ha adkeenin, iska daa baqiirnimada, bixi xoolaha ilaahay ku siiyey. qofka walaalka oo dhibaataysan wax ka sii. waa u jeedaa Soomaaliya si loogu baaba'aya maanta, dadkii xoolo la'aan noqdeen, abaara ka jiraan wadankii. maanta dowladda Soomaaliyeed waxay ku mashquulsan tahay siyaasad iyo inay qabsadaan micnaha la yiraahdo baalkii la yiraahdo codkaaga saan ku heli karaa, gadasho codkii jeebka lacagta u haysa inaad cod gadato. walaal inaad aakhirad fiirsato oo aakhiro adduunkaaga ku gadato, maxaa u sameey laadiin walaalayaal? maanta waa la dooranaya dad haddii la yiraahdo madaxweyne iyo baarlamaan, nin kasta baag lacag oo soo bixinaya walaalayaal. ma ilaahay ka cabsatiin walaal? lacagtaas aad meelaha ku qufaysaan maad la gaartaan dadka islaamka oo walaalihiin oo baahan. qof dhan aan naftiisa go'aysaa, baahi u go'aysaa walaalayaal. xoolahoodii u dhamaanayo, biilaan u dhamaanayo. walaal waxaad haysato wax ka bixi. siyaasadan iyo waqtigaad aad ku dhac jirtid lama joogayo adduunka, waa iska falaawra u jeedid, waa ka tagaysaa. maalin walba ninaa la sii wadaa la leeyahay maanta waxaad ku nooshahay, beri kuma noolaanaysid. caafimaadka maanta haysid beri ma haynaysid. walaal waxaan ku dhihi lahaa waxaad haysid wax ka bixi, ilaahay ka cabso. waxaasoo kaleento oon leeyahay halkaan ka leeyahay. waxaa ka kacay dab dhagax leeminsa ifo, waa meesha dhagax ka kacay, meeshay tahay waa garan la'ahay. ummadda Soomaaliyeed ayagana oo dabka ku kacay, ilaahay rabbi raxmaan oo dabkaas ka qabo. ilaahay rabbi raxmaan oo intii wax ku gaareen ilaahay ka shaafi. ilaahay rabbi raxmaan oo roob degdeg ilaahay u keen ka damiyo. ilaahay rabbi raxmaan oo intii u gurmato islaamahan, ilaahay rabbi raxmaan ayagana u maceen. ilaahay rabbi raxmaan oo ilaahay booyo gadhay. ilaahay rabbi raxmaan oo adoonkaagana waa baryotameynaa, baryada kama caajisnee. rabbi raxmaan oo ayagana dabkaas ka damiyo. intii wax ku gubatayna ama dhibaato ay ka gaartay ama xoolahooda ku waayay ama hantidooda ama guryahooda ku waayeen, ilaahay rabbi raxmaan meel ka qeyr qabta ilaahu sii.
يا سيدا صار دهينا إن شاء الله بإذن الله الكريم. Soomaaliya isku gargaara ninkii waxaayo jeebka fur si walaalkaaga baahan waxba ka aqran walaal macaan. Dhalinyarada Soomaaliyada gurmadoos dadkii waa waaweynaayo dhanba waa jiifaan war maxaa yaa anigu waxaan dooran lahaaba ama madax ka dhigi lahaaba ama waxaan boosiin lahaaba dhalinyaradii yaa wax fahantay hadda wax fahantay waxna qabanays kaca dadkiina waaweynka waa nila yaabanahay dadkii weynaa dhalinyaradii wax qabanays wariyada istaaga wariyada dhig isku yeela sameeya dadku waxay sameynayaan bixiyo waxay bixinayaan aqliga maxaa ilaahay ka qaaday waa ard bilaal bushaabi shaatigii dharku siibtay saaxiib musqulo qodaay dadku u qodaay oo aan waxba haysan xoogiisi iyo maalkiisi isku daray maxaa anaga u sameyn laana marka ii sheega labada lugood isdul saaratay canjeeradana waa ku diyaar beerkaagana waa ku diyaar ninna waa baahan yahay baarka iyo canjeerada meel kuma oga indhaha hadoo kala qaadaba irsaaqada ilaahay u raadiya soma asagana Allah siiyo intii haysatana Allah u zaadsho waxaan indhihi lahaa Soomaaliya isku miciina qabiilka waa jeceshiin iska daay qabiilko walaalka baahan oo dhibaataysan wax u qabo wax kale inta xukuumad raayaan saas ayaan dhihi lahaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soomaali meel walba ay joogto bismillaahi caafiya.